حوالي محمد نور runtii waxaan shabaabka ku beeray 2017 bishii labaad waxaan hadii u tashkiilin in lagu magacaabo Axmed Cabdidine wuxuuna ii kaashaday in tashkiilinteeda la yiraahdo Calibaas oo qaraabanahay runtii waxaan kaga beeray deegaanka Saako waxaan qaabilsanaa qaybta caafimaadka wada shaqayn badan kadib waxaan u soo wareegay maktabka amniga waxaa lay soo wareejiyay runtii 2 sano ka hor runtii waxaan noqday ku-xigeenka maxaan ku yiraahdaa ama naa'ibka محمد عبد الله كويانك نينكا استقبال هناك واحد كان يجي قرح سجن لو قرحي محمد ابراهيم معلم oo ka dhacay hotel loo dhinaciisa oo ninkii isqaxay gaariga daaqadiisa uu ku dhigay intii asigana waxa lagu magacaabi jiray xalay lagu magacaabay inta aan ku ogaa qaraxyada ka dhacday intaas ahayd walow ay jireen qaraxyo badan oo markaas ayagana diyaarintooda ay socotay runtii waxaa jiro kale qarax ka dhacay ceergaabta lagu qarxiyay dadkii ergada ahaa gobolada waqooyi intii qaraxaas waxaa isku qarxiyay in lagu magacaabo mulla ayaa isku qarxiyay mulla wuxuu ka tirsanaa waxaa haystay in lagu magacaabo hoostagay in lagu magacaabo maxaan ku yidhahdaa garweyne oo markaa haystay amniyaadka markaas ninkaan istishaadiyada ku qornaa dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkan Farax waxa uu aad u qorsheeyay qarax weyn oo ka dhacay magaalada Beledweyne gaar ahaan halka lagu magacaabo Baar Xasan Dhiif waxaana noloshooda halkaasi ku waayay in ka badan 15 qof oo isugu jiray qaybaha waxgalka ee bulshada wuxuu markii koobaad sharaxaad ka bixinayaa cidda la beegsanayay ujeedada loo abaabulay qaraxan iyo sababaha rasmiga ee keenay in kooxdiisu ay aabusho una madax ka noqdo abaabulka qaraxan bahalnimo runtii markaa soo koobo waxyaabo badan oo jiraan kooxda markaa soo koobo haddii aan ku bilaabo arrintii ka dhacday Beledweyne gaar ahaan Xasan Dhiif runtii Xasan Dhiif sababaha anaha maxaan ku yiraahdaa qaraxaas runtii horta targetka wuxuu aad u ahaa in lagu magacaabo Hussein ibn Xile oo ah nabdoon iyo horta targetka ahaa runtii sababaha loo dilay waxay koob ahaa runtii in looga yeeray shaabkii u yeeray uu diiday labo inuu saad saameyn ugu lahaa dadkii macnaha isu soo dhowey maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha Hirshabelle Puntland iyo qabaa'ilka xawaale taasaa sababta marka in ninkaas sida qaraxaas loo soo abaabulay inta kadib runtii waxaa laga bilowday abaabul lagu abaabulayo in lagu qaarijiyo xildhibaan Aamin Maxamed Cabdi runtii Aamino dadka shaqada fulinayay wuxuu ahaa nin lagu magacaabo Cabdishakuur wuxuuna ahaa ninka ku xigo amniyaadka gobolka ayuu ahaa waxaa ka sarreeyay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Dheere runtii waxaan ku kulannay Cabdishakuur Raxsin Xaaji Qurub gurigiisa gadaashiisa waxaan aad uga hadalnay arrinta Lamagalaay qadiyadda Lamagalaay runtii waxaan isla garanay arrinta in si hufan loo galo waxyaabaha uu ii sheegay waxaa ka mid ah in Aamino uu ii sheegay in uu yiri waxaa jira heshiis aan hore wada gaarnay heshiiskaas ayay nooga baxday marka taasaa sababta inaan qaarijino runtii waxaa bilowday markaas qaabkii loo fulin lahaa qaarijinteeda runtii ninka horta gudaha galo isqaaxiyay xildhibaan isku qaaxiyay wuxuu ahaa gaaljecel waxaa lagu magacaabay Cabdullaahi ayaa lagu magacaabay ninka isku qariyay xildhibaanada dile waxaan rabaa maanta inaad tafaafulo muuqaalkan aad soo daawateen arrinkan wuxuu dhacay horta 3 beri koor ama 4 beri koor uu dhacay arrinkaanu ninkan asagoo dambiyadiisii qirtay oo dawladdii ka horreeyay soo xirtay oo xabsiga ku jira oo dambiye tiro badan qirtay sidaad u jeediinba ayaa nisa hadda xabsiga ka sii daysay maad salaad laakiin dawladda ka horreeyay siyaasad ay isticmaashay arrinkaanu inuu dhici doono faadyaasi waaga wuxuu la baxay memory hadda ka hor lagu duubay ninka waraysiga looga duubay ayuu koobi garaystay muuqaalkii ayuu haystay ma ninka la yiraahdo Faad Yaasiin maad salaad muuqaalkii waa tirtiray inta waayay ninkan xabsiga waa ka sii daayay oo wuxuu islahay suuqa madow ninkan oo ku fakado arrinkii marka waxa soo fashilay maamulkan ka horreeyay ayaa muuqaalkan soo baahiyay laakiin maad salaad ma ogeyn muuqaalkaanu ila haayo mawsan ogeyn muuqaalkan inuu tirtiray ayuu u haystay in la koobi garaysto ma ogeyn wallahi arrinka waa sir waxaan rabaa marka meeshan inaan ka cadeeyo dadka nuucaasa oo cadeymaha nuucaasa lagu hayo oo ninka la yiraahdo horay Faad Yaasiin u sheegay oo hadda tanu ay cadeyn tahay ayaan indhaha ka haysanaa waxaa jira wariyayaal indhala oo qaabkay u shaqaynayaan aan garanaynin
oo wadanka ayagu maxay yihiin horta wariyaasha noocaas soo qoraya noocaas wariyaha soo qoraya ee doonaya ninka al-shayaadiinta la shaqeeya ee qaacinka ee waxyaalaha noocaas ninka sameynaya ninka doonaya inuu u ceeb qariyo huwa yuu yahay horta ninkaasu Soomaali ma ahan miya war nin aad u jeedid inuu dambiile yahay oo la cadeeyay oo asagu muuqaal laga duubay oo wax kasta oo dhan cadeeyay ayaa ninka liira ninkii sii daaya waxa rabtaa inaad u ceeb qaridaad rabtaa arrinkaas macquul ma aha ummadda Soomaaliyeed laakiin ba meesha ku jirta dadka dhageysanaya ninka ku xiran ee doonaya wax ka dhageysanaya wallahi billahi tallahi wallahi aakhir wallahi kula xisaabtamaya war Soomaaliya ilaahay aan ka cabsano war cadaaladu waa inay shaqaysaa daynu Soomaalinahay cadaaladu waa inay shaqaysaa ninka xali aadan la yiraa iyo inta la midka ay soo qoraya propaganda ilaahay ka cabsadana dilaaya ilaahay ka cabsada waxa jira wax la qari karo iyo waxa la qari karin maantay ummadii Soomaaliyeed maskaxda ayaa laga dagaalamay ayagii ayaa la kala qaybiyay qaar waxa la yiri waa la ku soo duulay oo dawladda hadda jirta tiimkii badbaado qaran 90 ka difaaci ku jiraan haddaad tiraahdid meeshan qarax baa ka dhici raba xitaa kama dhici rabay ku soo qorayaan war ilaahay ma ka cabsano nin la wareystay oo asagu qiray wax inta qarax u geystay inta dambiyo galay ninka asagu qiray wadada aad ugu ceeb qarinaysid maxay tahay ana og ninka aad u ceeb qaridi dooni maysid mahad salaad ba doonaysaa aad u ceeb qarido mahad salaad waxa hore u sheegay Faad Yaasiin baa hore u sheegay asaga ayaa cadeeyay ninkan kooxaha inuu la shaqeeyo asaga ayaa cadeeyay qaraxii beledweyne ka dhacay asaga inay ka dambeeyaan roobla inay ka dambeeyaan Faad Yaasiin baa cadeeyay maanta cadeynteediina ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haysata annagu seeru aaminaa marka dawlad nuuca u dhaqmaysa oo qofkii dambiilaha sii daynaysa oo baraha bulshada dad lacag ku siinaysa inay u ceeb qariyaan seen ku aaminaa annagu dawladda nuucaasa maanta laga bilaabo aanu taas dawladii ma runtan idin sheegaya dulqaad baan Xasan Sheekh Maxamuud oo rabnay inaan kugu taageerno nimanka al-shayaadiin oo la dagaalamaysa inaan kugu taageernaa rabnay ummadii Soomaaliyeed maalin baqaar baad aad ninka liiraa sii daynaysaa maalin baqaar baad iska soo horjeedinaysaa war waxyaalaha nuucaan oo kala dalkanagu inuu hagaagaan u baahna dalkanagu ficil uma baahna illa isficilo maamul tagayan ficilaya inaan ficilana wax kastaan u sameeynaya dalkan u duminaya annagu haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay in ka yeeli mayno sababtoo ah waxaynu doonaynaa dalkanagu inuu hagaago dalkanagu inuu dawlad helo inuu cadaalad helo maamul tagay inaad la ficiltanto waxaa la hadlayaa wariyaalka la hadlayaa maamul tagayadoo la ficiltamaya haddaad ninka nuucaas u ceeb qarisid wariyaa dambiilaata maad salaad inuu nimanka al-shayaadiin la shaqeeyo muran kuma jiro maanta ayaan xaqiiqsaday dad badan ay la soo xariiray waxa la yiri ninka waa walaalka wallahi been idin ma sheegayo aniga adinka walaalahaya qof kasta Soomaali waa walaalkay waxa la yiri maad salaad war waa nin walaalka ninka tooshka ka leexay war waxyaalaha nuucaan oo kala ma tooshka leexi kara qofkan uu sii daayay ma tooshka leexi kara ma ninka qaabka uu dhaqmaya tooshka leexi kara hadduu ninku wadaniya yahay dalkiisa u shaqaynayo ceebaha yaryarka waa la qari karaa laakiin ceebta nuucaan oo kala wallahi billahi tala qari maayo dalkaygana dhaafsamaayo qof shakhsiya oo maanta igu dangaaraya oo maanta doonaya kursiga inuu ugu fadhiyo والله إن ذلك يجدف سنين ذلك يا يجمع إنسان ما هالسنة دي أنت لمتك نكا والشيادين ومد الصومالية ما تحروا عدينا يا والشيادين ذاتك حمر شوق هم الظهر هذان مواحد سوى إنسان أنتوا إذا قرحينا سوى إنسان أنتوا قرحيين دي ما سوى إنسان رمق دشوا واربورر سوقاتها ما هالسنة داون ده حسن شيخ محمود داون ده وحروا دولة ما عنده warmo xasan dhowra karna ceeb tasbiyan anagu dhowra karna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka doonaya inay mahadsalaan ceebihiisa banaanka soo dhigaan wallahi dadka waa u mahad celinayaa maalin bayn baa laga soo daynayaa waliba Faad Yaasiin baa hadda dhaarsan muuqaal kale uu soo duubi rabaa hadalka meel ku qorta cadaymo kale ayuu sheegi rabaa qofka ma ceeb qarina war dawladdanadu iyada tan ceeb ku qabta adduunku waxyaalaha nuucaan ah hadduu maqlo sidoo noo aaminaya sideen anagu isku aaminaa dadku waxa loo baahan yahay inay meel u wada jeestaan sideen anagu isku aaminaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad dadka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa ha ogaadaan mahad salaad qofka uu yahay
qofka mahad salaad yahay ha ogaadaan ninka dembiyada noocaasa dalka ka gelaya waa dembiilo qaran weeye manabadaan ka sugaynaa sirdoon baan ka sugaynaa war maxaad ka sugtaa horta qofka noocaana qofka nuucaa samaynaya maxaad ka sugtaa adigaadina daawanayaan kula hadlayaa haddaad taageersan tahay walaal cabdifadaan ha ii dhegaysan soomaalinimo iyo wadannimo ii dhegayso faad yaasiin baa soo sheegay wuxuu yidhi dilkii igraan asagaa ka dambeeyey caddayn cad buu bannaan ka dhigay mahad kama hadlin ilaa hadda ma beenin ma diidin shibu waa raalli weeye maantay waxaa kaloo caddaynoo lagu hayaa gabadhii aaminaheeda xildhibaanadda ahayd oo baraha bulshada ay la taagnaayeen farmaajaa qarxiyey maantay ninkii sirteeda kashifay ee sheegay asagu inuu qaraxa ka dambeeyey ee sheegay asagu inuu gaariga soo saaray ninkii qarxiyey in inta la dhuunto xabsiga laga saaro waraysigii laga duubay in la dhaliidgareeyo caddaymihii in la tirtiro laakiin niisadii ka horreeyay mahad salaad ayaa falaashya ku qaadata muuqaalkan ayaga ayaa soo fashilay ilaahay adoosu ku cib qarinayn waa noocaan oo kale annagu haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud baan baaqu diraynaa indhaha inta isku qabanaan ku taageeraynaa laakiin dalku soo nabad u noqdo ninka meesha ka saar ninka maxkamad ha la geeyo annagu maxkamad baynu ka rabnaa ninka in la geeyo haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay mahad waa walaalkay ma diidani laakiin walaalkay qaldan dhowra ma dalkaygana walaal dhaafsan ma tuug weeye wallahi dhowra maayo mana taageerayo dulmiga ma taageerayo qofka noocaasa inaan taageero waa midaan dhicinba mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambayntii baaqa halkaan aan uga dirayo ummadda Soomaaliyeed ha isku tashato sirdoon uma jiro ciidamo nisal yiraahdo ma jiraan qof aan ku kalsoonaana ma jiro nin asagoo ninka la yiraahdo al-ugusa oo ognahay maanta tan haday soo cadaatay dilkii Farxaan Qoorolan asagoo inuu ka dambeeyay halka ay ku cadahay oo de xaq ba feer ka dilaaci doone maalina saa loo soo fashili doono annagu ma aaminsanin sirdoonna nooma aha maantana nama matalo beelahan nama matalo Soomaalihan nama matalo dawladahan nama matalo weynu diinay annagu wadan ummadda Soomaaliyeedna arrinka haddaan ka gudbo weerarkii iyo dagaalkii gaadmada ahay ee ciidanka federaalka iyo ninka la yiraahdo macawisleyda lagu soo qaaday aad iyo aad baan horta intuu ku dhimatay uga tacsiideynaya waxaanse maanta halka ka cadaynayaa nimanka ninka la yiraahdo reeraan la yiraahdo inay iyagu isku tashtaan Soomaalida kale iyo qabiilada kale inaysan ku tashan waxaynu ognahay bildan ayaa bootan nimanka la yiraahdo ay ku hayaan nimanka mudulood bildana waxa lagu hayaa kaarayaal iyo dhishikayaan soo kicinay war dagaal loo bootaynaya gaal lagu arkay dagaal ciidankii gali lahay lagu sawiraya gad ku aragteen maanta sir baan idin taabanaya dadkaas sababta ay u dhaqaaqi ilaayihiin oo dadka reer galgaduud u dhaqaaqi ilaayihiin sababteeda ayaan idin taabanaya halka ku qorta maanta harba inaan idin cadeeyo reer Hiiraan xildhibaanadooda iyo dawladoodu waa isla socdaan meel yar baan ka tusaya waxa la sheegaa dadka kaliya ee hal meel u wada jeesta oo salaada isku xirta oo waligood dagaal qabiil oo ka dhaxdhicin dadka reer Hiiraan inay yihiin raadiya arrinkaas waliba beesha xawaadle inay yihiin ayaa ummadda Soomaaliyeed isku raacsan tahay waligood qabiil iskuma dagaalin hal ugaas bay leeyihiin hal meel bay salaada u tukadaan beelaha kala dhibka haystana xildhibaanadooda iyo madaxweynayaashooda ama madaxdooda ayaa biyaha hoostooda iska arkan oo kala shakisan markaan baaritaan dheer sameeyay xalay miyaa masaabiin hore nin xildhibaanada telefoon igula hadlay waxa la ii sheegay dagaalkii galguduud laga qaadi lahay oo reer galmudug qaadi lahaayeen sababtoo u baaqda ayaa la ii qamray runtaan maanta idin sheegaya waxa la ii sheegay qoorqoor inuu ka xalaaqay xildhibaanada dawladda federaalka ee asaga soo marin ku soo qaatay qandaraaska inay meeshaas ciidan ka dhaqaajiyaan oo al-shabaab ay qabtaan intaa buu ka xanaaqay qoorqoor sababtoo ah qofku waa madaxweyne asaga in la soo mara ayaa quruxdu tahay asaga in la tashta ayaa quruxdu tahay nimankan waa niman dagaal hore ka dhaxeeyay oo isku kacsanaayeen oo qaarna ay badbaado qaranaayeen qaarna nabadii nolol lahaayeen kalsoonina ma isa dhexmarin nimankii inta soo duuleen alcadaala kamida ayay iyagoon dhuusamareeb imaanin oo aan qoorqoor la heshiin oo la shirin ayay baxda waxay ka abaabuleen ciidan deenninku waa madaxweyne ficil baa qaaday asaguna waxay sameeyeen iyagu kansala madaxdu waa inay iyagu is aaminsan yihiin madaxdu haddaysan is aaminsanayn waxba socon maayaan sababtuna waxay tahay horena halkan waa kugu sheegay
alcadaala iyo inta lamidka ee dowladda federaalka xildhibaanada ka ah ee galmudug ka soo horjeeda waxay doonayaan inay wiiqaan qoorqoor asaguna waa dagaalamaya qoorqoor anigu waa ka leexday maalin dhoweed muuqaal baan duubay qoorqoor aan u sheegay runtaan u sheegay waxbaan kaa soo bandhiga aan idhi xildhibaanaa la ii soo diray la soo hadlay si fiican bay iigu sheekeeyeen waayna iga shaafiyeen wixii aan qabay runtaan idiin sheegaa waxaan ka xanaaqsanaa dagaalkaa u qaadi laayahay laakiin waxaa la ii sheegay dagaalka waxa ku istaagaa layidhi xildhibaanada qofkana waa inaad ugu garawdid dhibka haysta qoorqoor dhibka haysta waxa weeye maamulka ou galmudug ayaa loogu yimid kursigiisaa loogu yimid waana de nin ficiltamaya dagaalamaya war waxaan idin leeyahay adinku intaad heshiidiin qaabkaa rabtiinba u heshiiye hal cadow baad leedihiin cadowgaa iska dulqaada adinku inaad isficishaan ood isdaadaawataan cadowgaasu ku bixi maayo cadowgaa saara qoorqoor cabsi baa haysa inta aad haydid ayaa dhib ku qabtaa haddii aad degmooyin kala qabsatid waa lagula maamulayaa yow taagan weliba wuxuu aad u sii diidan yahay ceelbuur in la qabto ceelbuur dadkiisu waa dad ka soo horjeeda qoorqoor ka soo horjeeda arrinkaa qoorqoor aad ba uga cabsanayaa waanu garaabayaa marka qoorqoor waxaan leeyahay marka dadkiinna war tashada war isku imaada war alcadaala iyo qururuf iska daaya dadka qoorqoor adigaa madaxweynaa teetal madaxweyne adeegso dadka adigu howlgeli dagaal geli degmooyinka qabaan ku leeya ugu dambaynta muuqaalkayga waxaan ku soo qatimayaa waan ugu dambayn doonayaa inaan la dardaarmo dadka baraha bulshada wax ku qora ama wariyayaal ha ahaadaan ama afku-xoglayaal ha ahaadaan walaalahayga soomaaliyadow si soomaalinima ku jirta ayaan inla hadlayaa annaga dowladda annagaa iskale haddaynu soomaali nahay waa dowlad naga dhaxaysa anigu ma diidanin inaad taageertaan ma diidanin inaad dhiigga u hurtaan laakiin waxaan diidana walaalayaalow qaladaadka dowladdu gelayso inaad dugdugtaan inaad qarisaan baan diidanahay ninka maanta madaxweynaha ama ninka maanta niisa joogaahu dhowr sano kadib waa tegayaa dalka ayaa haraya walaalahayga soomaaliyeedow ummad soomaaliyeedoo aad u tiro badan ayaa dalkaa doonaysa inay hagaagaan inaad adinku baas u noqotaan inaad adinku inkaarqabayaal noqotaan inaad ummadda soomaaliyeed adinku indhahooda wax qaldan tustaan walaalayaalow ha ku dhiiranina arrinkaan ha ku cooboobinina dhiiqa lugaha ha la gelinina wax cad oo ninka la yidhaaha caad saarnayn oo ninkii qirtay lahaayo oo muuqaalkiisii lahaayo inaad u qiil daydaan ha raadinina waxaan ka codsanayaa dowladnimada u shaqeeya adinkoo dowladda taageeraya dowladnimada u shaqeeya markay meel ka leexatana xataa adinkoon wax ka qorin haddaad la xiriiri karti xiriir la sameeya haddii kale muuqaal jilicsan dhaliilna leh u soo dira oon macaarad ahayn arrinkaa baan kula dardaarmayaa war dalkanagu inuu hagaagaan doonaynaa mar labaad iyo mar saddexaad war dalkaas dad aad u tiro badana dulminaysaan war dulmiga daaya maanta codkiinnu hadduu adinka meel fog gaarayo dadka ha dulminina ilaahay ka cabsado dadka ha dulminina arrinkaas baan kula dardaarmayaa waxaan rabaa muuqaalkayga inaan ku daba qabto cali dheere ninkii la dhahayo waa soo hadla inuu nool yahay ayuu soo caddeeyey anigu markii horeba shakiyaa iiga jiray sababtoo ah cali dheere iyo ninka lamidkaahu dagaalka ay gelayaan nimankaas al-ugus ma geliyaan ma doonayo inuu dhinto ninkaas sariir iyo joodari baa isku dul saaran brobagandada maanta waxay maraysaa in ay fidiyaan xitaa ciidamadii dowladda dadka bayjadkooda wax ku qora war maantay baraha bulshada ayaa dadku daawadaan adinku waxaad tihiin dowladdii waxaad qoraysiin waa inay run noqdaan seen idiin aaminaa ilaan inaad diidaysaan baraha bulshada dadku inay wax ku qoraan waxaad diidayseen in xogtiinna iyo sirtiinna iyo beentiinna lasoo sheego waxaad diidayseen cali dheere markuu soo hadlo in dadku dhegaystaan nimankaanu waxay ka hortegayeen cali dheere markuu soo hadlo in la dhegaysto waxaa loo burburinayay idaacadaha al-ugus waxaa loo diidanaa wixii ka hadla nimanka ugus la yidha waxaa loo diidanayoo dhan waa hadalka uu soo wada cali dheere dadku yahay maqal war waxaas waa ceeb war ilaahay ka cabsada war barbagandada naga daaya war dowladdii aad tihiin waxaan rabnaa inaan idin aaminno waxaad sheegtaan inaan rumaysannaan rabnaa inaan daacad idiin noqonno oon adinka idin dhegaysanaan rabnaa seen idiin dhegaysannaa tiifigii qaranka waxaad ku soo qoraysaan intaad ciidamo qaran keentaan beenihii mudullooda kacay qabiilaad ku soo qoraysaan ninka la yidhaha brobagandaad ku baahinaysaan been baad sheegaysaan war adinku see idiin aaminaa horta yaa tihiin adinku maadnaan dowladdii aanan ahayn muraayaddii ummadda soomaaliyeed intay hor istaagtay iska fiirsanaysa miyaadnan ahayn
haddii muraayadda aad been ka dhex arko see ku aaminaya war dowladdaanu waxaanu dowlad maahan war system dowladeed la imaada war qaab dowladeed u dhaqma qaabka aad u dhaqmaysiin xiitaa muryaadtu uma dhaqanto waxaa seen anagu ku aaminaa see ku aaminaa borobagandan baa saka naga gelinaysaan wariyayaalka soo qoraya maanta ninkaa u ceebqarinaya qaacimiin weeye wallaahi maxkamad baa ultimada laydin soo saaraya ugu dambayntii waxaan ugu dambayntii kusoo gabagabaynayaa dadka Soomaaliyeed dowlad maahan waxaan waa ka foljignaadaan inta ay la imaanayso system dowladnimo wallaahi billaahi tallaahi xiitaa dowlad uma eka waxa maanta meesha ka jira dowlad saa been u sheegaysa dowlad iyada argagaxisaa dowlad iyada dadka qarxinaysa dowlad iyada dadka qarxiyay sii daynaysa dowlad iyada isku ceeb qarinaysa dowlad TV-geedi qabiil ka shaqaynayo war waxaanu dowlad uma ekee wax dowlad u eg baan anagu doonaynaa dadka shacabka waxaan doonayaa arrinkan inay ka mudaharaadaan dowladdan inay ku kacaan afku xooglayaalkan dowladdu lacagta siido oo aan ogahay anigu la biilo ha dhegaysanina wallaahi ha dhegaysanina falowda kala wada laabta nacalad kurida wax la dhegaysta maaha ugu dambayntii waxaan kaa codsanayaa walaalkayga Soomaaliyeedu muuqaalkan maantay waa maaseed dheer meel dheer inaad geysaan kaa codsanayaa inaad sheer garaysid oo dadka oo quseeya aad gaarsiidid oo aad loof iyo laag iyo sheer taabsiidid anigu waxaan ka soo horjeedaa gardarrada noocaas oo kala adiga ayaan doonayaa inaad ku garab siidid inta beenaalayaalka aad garab siilahayd inta beenayaalka muuqaalkooda meel fog gaarsiilahayd kan baa ku anfacaya meel fog gaarsii kan gaarsii xasan sheekh maxamuud iyo dadka ninka la yiraahdo dadka dambiilayaalka sii daynaya gaarsii kan oo sheer garay meel fog gaarsii gacmahaada waxaan kaa doonayaa inaad dowladdaada ugu hiilisid dadnimadaada inaad ugu hiilisid ila dowladdu waa dadnimadaadii waa muraayadii dalka dowladda hadda jirtaahu annagu haddaynu tiim nahay war kalkaal waanu ka soo horjeednaa sheer gareeyo gaarsiiyo codkanaga inaanu diidanahay inaan annagu cod leenahay inaysan naga cod badnayn kuwa waxyaalaha nuucaasa soo sheer gareynaya dareensiiya anigu waa isku qasbaya dowladda inaan taageero dowlad jacayl ayna iga ahaad laakiin maanta ka quustay maanta waa ka quustay wax taageeraa uma hayo maanta laga bilaabo weligayna ma taageeri doono ilaa aan ka arko masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan masiirkaada iyo masiirkayga ilaa aan ka arko wallaahi saabaa dhaliisheeda u soo sheegaya ugu dambayntii muuqaalkan meel fog gaarsii Soomaalinimada ha waartay walka kaal aad iyo aad ba mahadsantiin